wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo gabagabaysay kulamo wada tashi ah oo maalmahanba ay ka waday magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. kulamadii ugu dambeeyay oo laba waji kala ahaa ayay xubnaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya la qaateen ganacsatada ka shaqeysa degmada Jowhar iyo hogaankooda rugta ganacsiga ee Hirshabeelle. ujeedka guud ee kulanka ayaa ahaa ka hadalka qorshaha horumarinta qaranka oo ah kii sagaalaad, waxaana laga talagelinaya ganacsatada si fikirkooda ay ugu biiriyaan. hogaanka rugta ganacsiga Hirshabeelle ayaa ka hadlay qodobada loo baahan yahay in qoraal laga sameeyo si loogu soo daro qorshaha horumarinta qaranka, qodobadaas oo muhiimad gaar ah u lahaa ganacsatada. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iskaashiga horumarinta dhaqaalaha dalka Asad Yuusuf Qanyare ayaa ka warbixiyay kulamadii ay ganacsatada la qaateen. Hirshabeelle wuxuu wada tashi la yeeshay rugta ganacsiga stateka Hirshabeelle. alxamdulillah wada tashi kadib waxaa ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo saddex qodobo oo ahmiyad gaar u leh Hirshabeelle gaar ahaan rugta ganacsiga. qodobadaas waxaa ka mid ahaayeen amniga la sugo. qodobka labaad oo ka soo baxay oo isku xiran beeraha iyo webiga, maareynta biyaha iyo maareynta webiga oo guud ahaan. qodobka saddexaad oo ka soo baxay waa kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan jidkan oo ka baxo Jowhar ilaa Muqdisho. rugta ganacsiga waxaan ka helnay xog badan oo runtii aan isleenahay haddii laga caawiyo waxyaalaha qaarkood inay wax soo saarkooda uu aad iyo aad u soo kormarayo. iyakana waxay noo sheegteen suuqgeynta inay ku adag tahay maadaama oo jidkan uu aad u toosneen iyo caqabooyin kale daraadooda. alxamdulillah waxaan ka tagnay meesha anagoo isku afgaranay saddexdaas qodob iyadoo aan ku soo dari doono qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad. kadib wareegga labaad aan isku soo noqon doonaa, aan fiirin doonaa bal sidaan meeshaas uga tallaabo qaadi doono. xubnaha ka socday wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulamada wajigoodii labaad la qaatay agaasimayaasha guud iyo shaqaalaha kale ee ka shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. si la mid ah kulamadii hore ayaa iyagana lagala hadlayay qorshaha horumarinta qaranka. agaasimayaasha iyo shaqaalaha kale ayaa mid aragtidooda uga dhiibanayay arrintan, iyadoo xubnaha wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay qoraal ka sameynayeen aragtiyaha laga dhiibanayay kulamada. Yuusuf Abagran, Television Cable, Jowhar.